haweenka Soomaaliyeed oo jaadka gada waxaan idin sheegayaa in aan danteena inaan ka hadalno ay tahay oo dhibaatada aan jaadku qabno inaan ka hadalno oo isku imaano lambar 4 Galaxy waxaan bakaaro amarweyn Faaruwa inta jaadka gada oo ugu soo gado waa inaan cabashadeena aan u gudbino madaxweynaha dadka aan qabno aan u gudbino oo aan soo banaan baxno oo codkeena banaanka keeno dadka aan qabnaa dadkana waa soo qabtiin laakiin madaxweynaha iyo wasiirada dadkeena kama warqabaan xanuunka aan qabno kama warqabaan inaan isku imaano maanta arbacada kaliya oo qaadka ka istaagno oo aan codkeena dhiibano xanuunka nahay aan ka warqabno jaadka dararteen 40 in laga qaado in 30 laga qaado 8 aad gado 6 aad gado 7 aad gado qiimo aan la ogeyn lagu soo siiyo waxay maskaxdooda ka maagaan inay ka qaadayeen dhibaatadan aan ka hadalno codkeena aan ka dhiibano madaxweynaha aan u sheegno wasiirka arrimaha aan u sheegno annaga dad shacabanahay madaxweynaha waa taageersanahay dawladdeena waa taageersanahay dadka annaga aan qabno inaan sheeganayaa fiican inaan qarsano oo dambiyaha korkooda ku cawaadno oo aan ku calaacalno oo niraana maanta 100 noodi maqalkii ay dhiman bariis ma lagu soo haddana lagu xijeeyo maalin dhaaf lacagtiisa caawashadeena aan dibisano dawladdeena annaga aan u sheegano caawashadeena jaadkaan ka sheega dhibaatada xanuunka aan ku qabno oo aan rafaad ku qabno oo maqalkiisa aan dhibi weyno qasaaraha oo soo badan tahay dalkii ka sheega xanuun badan yahay habeenka lacagta soo bashqad baa ku soo dhaceyso bashqadaas oo marka ku soo bashqad baa kula hadlayso adiga madhii karto waxba iga dhiman hadaa 5 kun dhiibto hal door ka dhimato waa lagu soo celinayaa dhibaatada aan qabno madaxweynaha nagama warqabo dadweynaha jaadka gado dadka aan qabno nagama warqabo ilaahay qalbigu daalacdaa bini'aadamkan afku daalacdaa qalbigeena aan madaxweynaha u sheegno inuu xanuun yahay qaadka aan gadno oo dhibaato aan ku qabno oo beec u soo bixin laga qaado dadka ayna guryaha u heeytaan aan isla hadalno oo dib aan ku qabno qaadkan karfanta ku jiro oo Itoobiya laga keenay karfan wax ku jiro qof hadii karfan la geliyo wax ma weydiisan kartaa waa may jawaab qaad karfan ku jira nimanka qaadka qaybiyo inaad qaadka qaybiso oo beec u goyso madaxweynaha gudbina cabashadeena